biyaha raali waa ka xumahay dhabkii ayaan ka gaarsiiyay biyaha ma xasuusataa aabo ها طبعا waan ku xasuustaa sumay matiida iga aamus halaan kadib kuma dhageysan karo hello may maqlaysaa ما بحث بيعتت مايا بيها رالي كحماهي دبكي ayaan ka gaarsiiyay biyaha waxay la tahay inaadan iga hor istaagi doonin inaan hantidaada dhan la wareego xaaladda ku sugantahay darteeda waxay la tahay si fiican ayaad u maqashay hadalkayga duqa waqtiga dhawaan in wiilkaaga aniga arrimo guur iga la hadlay rantigeliskeenana uu dhici rabo adigana xaaladaada sidaan ayay tahay gabagabo qof aakhira u sii socdayaa tahay anigana ulijeedkayga waxa waaye inaan hantida wiilkaaga iyo hantidiinaba aan dhaxlo duqa arrintaan oo dhan waa aniga aan soo qorshaystay marka adigana sidaada iska waa kaa gaclihayga hadda imaaday سدوا عليه يعني سوان كاس وداهي عملينا حي دملان سدوا قف كان ياوي قالي ازدجي دقان كي ابي سواي وحلا كان مشوي لدو لغو حنانيو هادنا اناغي غورغنا لا جوغا waxbana ma fahmay amirkiisu amir daboolan yahay wuxuu la mid yahay alaabta guriga noo taalo kale marka waxba ka cabsanin ma hubtaa inuusan wax fahmaynin ها كاهوبا وأنا نجا كنترولي مدبرا سيدو شقيناي هرمرك ويلكيسي هرمرك سيدو وقف كراي ودنبين ما أنت حوا كرسي سيو كسو أروري هنتي دي سنة أنا جاي أكون راح يسنن حبيبي أنا مري maxaad ka leedahay haddaan beri magaalada aan qado u wada aadno maadaama aad waalidkayga wax badan daryeelaysay se ila tahay inaa u baahan tahay na siino marka magaalada ma wada aadnaa waa arrin wanaagsan laakiin aabba ayaan uga tegaynaa beri waxaan tahay aabbo waa keligii laakiin waxaan ku hayaa arrimo lama filaan ah waan sugi la'ahay intaan ka arkayo lama filaanka waxba ha ka welwelin beri ayaad arki doontaa waxalwo هذا كيف ما دوت أنيق ويونا سنتاي إنهم قارك ما أنت أنيق سندريم وسأبو مين كي يسوي ناسنا يندريم ويا أنيق سوف فريستا سلام في الغايو وحد دريم يسان جاجو أنيق المحن سميه راشيد إنه ولا ده هذا وهم فانساني محل تاينتين سوف فريستا ما أنت عرفت راشين قاد أي وناك سنتاي
ma i xasuusataa aabbo ها طبعا وأنا حسوستا سمية متيزة هذيك aabbo sumay ma ahan waa sacdiyo إيرا نقبل كيوان إلو aabbo mar dhow ayaan ku baray sacdiyo aniyo sumayna mar horaan kala tagnabo واسحنت أبيل كيجا أنا حسوست كذا مردو أي سؤال لاوتي طبعا واسعديو واسحنت أبيل كيجا اللي بيسو وأنا كحومة هاي أنا حسوست كذا حتى أي سؤال لاوتي طبعا واسعديو على كل حال sacdiyo maanta waxaan ugu talagalay runta admiya haa waa arin wanaagsan qabsay gabadheed maxaa oogay kaadi fornada rooti ugu jiraan soo baxsanaa waxaan idin wadaa aniga surprise aad u wanaagsan maadaama aad goor dhow waa arin wanaagsan hambalyo mahadsanid qoyskayga mustaqbalka jacaylkayga iyo barwaaqada kusoo dhawo nolol qurux badan aabba ma xasuusataa shalay waxaad samaysay ها طبعا وانا حسوستا شلي بنجي ayaan isku raacnay saaxiibkayga waxaan meesha ku soo qaadanay waqti aad u fara badan ma fahamtay waa ogtahay waxyaabaha ganacsiga inay iska caajis badan tahay suurtagal ma ahan waayo adiga 5 sano la soo dhaafay gaari inaad kaxeyso awood uma aadan lahayn naga dhaaf waxyaabahaas maa la yacniga wiilkayga fadlan taasi waa wax lagu qoslo naga dhaaf hadallada maa la yacniga ah maxaa yeelay aniga weli gaari waan kaxayn karaa mawaalantahay weli waxaan ahay qofkaad ogeed oo adka waa inaan beri isbitaalka geeyaa waxbaa qaldan waayo maskaxdiisa way isku qasan tahay aabba iska dhaaf alaabta aniga ayaa dhaqaaya maya gabadheeda ma samayn karti middaas maxaa yeelay tubada way halaysan tahay waxaa laga yaabaa in wasaq dhex ay ugu jirto aabbo aniga ayaa fiirinaya hadda may wiilkayga fariiso mar hore ayaan wacay tubistaha fariiso qolka jiifka ayaan ka helay shirkadda lambarka tubistaha qolka jiifka ah haa qolka jiifka waa saxan tahay waa kan waa imaaday tubistaha albaabka ayaan kasoo furaya adaniga tubad in ay wax celinayaan aniga hadda fiirinayo maxaa yeelay biyaha ma gudbinaayo wuu fadhiisanaa meesha maqora soo fiir hadda aniga aqoon buuxda kuma lehi dhab ahaantii wiilkayga waad jeceshahay miyaan saas ahayn ها طبعا waa arrin wanaagsan wayna fiican tahay inaad jecel u qaado qof taajir ah oo haddana lacag leh inaad wax qorshe ah diyaarisid maxaa yeelay wax walbo lacagta ayaa lagu xalin karaa lacagtan waa wax cajaa'ib ah tagaag balse weli kuma fikirin arrintaas waa qof walbo aabbo fadlan wiilkayga waxaan ula jeedaa dumarka qaar ragga waxay ku guursadaan lacagtiisa iyo hantadiisa
ayagoon wax jecel ah u qabin, ayagoo dalbanayo meher badan una sii dheer xatooyo si kastaba ha ahaato. waxaan rajaynayaa inaadan igu dhaga hadlaynin. maya 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 ma samaynin arrin noocaas oo kale. sida dadka aniga oo kaleeta ah oo la mid ah alaabta guriga la dhigto ma fahmi karaan fikradaha qaar. tubada celinaya kanoo ahaay waa maxay sacad miya sacadan sacadahayga wayba ka duwantahay ani milihii hadda adiga islaaniyaa iskale marka waxaa laga yaabaa inaad taqaanid qofka iska leh saacadan. haa anigaa iskale. waayaa muxuu ula jeedaa arrintaas haddaan wuxumaa aniga runta ayaa ah inay gaclisadaada ay kugu qiyaami jirtay ninkan tubiistaa ah wada kulmaayaan. maxaad ula jeedaa arrintan waa maalaa yacni? way iska caddahay arrintan. saacadan waxaan ka qaaday anaga isaga waxaana ku riday qaybta tubada. ugu dambeyn waxay ku dhammaatay gacantiisa. qoftan wax daryeel ama wanaag ay ku samayn jirtay ma jiraan. mar walba waxay danaynaysay lacagtaada wiilkeyga. lacagtaada oo keliya ayay danay jirtay qoftan. xitaa ficilada iyo hadalada ay horteeda ku samayn jirtay waxay u malayn jirtay iyada inaan aniga maqlaynin ama aan arkaynin. shalay markaad meesha fadhiday wax erayaguma aadan dhihin, maanta maxaad samaynaysaa? ha aaminin weli maskaxdiisu isku qasan tahay. hagaag waa waqtigii aan saari lahaa kaarkeyga caafimaadka miiska. wiilkeyga aniga ma xanuunsani, waan iska yeelyeelayay. waa ogahay inaad saa'id iga xanaaqi doontid. ulajeedkeyga waan gaaray. wiilkeyga waa og tahay inaan ku ilaashan jiray. waad og tahay ganacsigeyga si fiican u wada jirtay, shaqo adag na qaban jirtay ilaa aad ganacsigeyga ka dhigtay sida ubaxii oo kaleeto. intaas kadib aniga waxaan bilaabay inaan fiiriyo warqadaha xisaabaadka faa'iidada iyo khasaaraha. waxaan kaloo arkay lacago fara badan oo lagala baxay bangiga. adigana ma isoo wicin mana isoo booqan. adigana wax akhbaar oo dhankaaga ah kama aan maqlin. kadib waxaan ku fikiray inaan iska dhigo qof xanuunsan. jilinkeyga ayaan meesha ka sii watay. kadib waxaan arkay gaclisadaada iyo qofkan tubiistaa ah in uu xiriir ka dhexeeyo. ma aqaano arrintan waxaan ka dhaho waa mahadsantahay aabbo. gacli aabbahaada miyaad aaminaysaa oo xanuunsan? daqiiqado ka hor waad ujeeday inuu sumayo igu wacaayay. iga aamus iga aamus iga aamus halaan kadib kuma dhagaysan karo. ma kaa filinayna arrintan inaad igu samaynaysid. adi iyo doqonkan aad jeclaatan horteeda ka dhaqaaqa ee faraantiga iyo halkan ay saar. shaakaal kala qari labadeena fees ma garatay mar kale dib dambe inaan ku arka xataa maray wejiga iga qari ord. orod adiyo doqonkan aad jeclaatay kaxeeso guriga iga baxa. waan ka xumahay wiilkeyga. waa mahadsantahay aabbo, nolosheeda ayaa badbaadisay. mana haayo sababaan kaaga xanaaqo. waxaan kaa raaligelinayaa
inta aan ku soo booqanin laakiin laga bilaabo nolosheeda waqtiga ugu badan nolosheeda adaan kula qaadanaya aabbo laga bilaabo saacaan hagaag wiilkayga waan ku jeclahay aabbana ka daran